Assalaamu calaykum. Halkani waa Dadaal Academy oo laga barto luqadda Englishka conversation wada sheekaysi. How is your general situation, my brother? Waa sidee xaaladaada guud walaalkayow? How is your general situation, my brother? Waa sidee xaaladaada guud walaalkayow? Praise to be to Allah. Alhamdulillah. Wa ilahi mahadi. Praise to be to Allah. Alhamdulillah. I am very well. Waan wanaagsanahay. I would like waxaan jeclaan lahaa to discuss with you inaan ka doodno how we can increase our knowledge of English. Sidaan u kordhin lahayn aqoonteena Ingiriisiga. So, saa daraadeed, how does it seem to you? Siday kula muuqataa that idea, fikradda? I would like waxaan jeclaan lahaa to discuss with you inaan ka doodno how we can increase our knowledge sidaan u kordhin lahayn luqadeena of English Englishiga. So, saa daraadeed, how does it seems to you? Siday kula muuqataa that idea, fikraddaasi? Really, run ahaantii, you hit the nail on the head. Waad asiibtay. Waa phrases. You hit the nail on the head. Waad asiibtay. You are intelligent person. Waxaad tahay qof caaqil ah oo maskax badan. Because maxaa yeelay you chose waxaad inoo doortay a good topic wanaagsan ayaad inoo doortay. And my opinion, fikrad ahaantayduna, we can increase waxaan ku kordhin karnaa if we emphasize haddii aan adkayno the grammatical construction luqadeena dhismaheena grammatical construction dhismaheena grammarka aan use aanan isticmaalno tensesyada aan isticmaalno correctly si wanaagsan aan isticmaalno. Really, run ahaantii, you hit the nail on the head. Waad asiibtay. And you are intelligent person. Waxaana tahay qof caaqila. Because maxaa yeelay you chose a good topic. Waxaad inoo doortay mowduuc wanaagsan. And my opinion, aniga fikrad ahaanteyda, we can increase waxaanu ku kordhin karnaa if we emphasize haddii aan adkayno the grammatical construction dhismaha grammarka and use aan isticmaalno tensesyada tenses aan isticmaalno correctly si wanaagsan aan u isticmaalno. Qofkii kale ayaa wuxuu yidhi speaking English ku hadalka Ingiriishu seems to me wixii la muuqdaa very difficult mid aad u adag. So saa daraadeed, how can I improve my speech? Sidaan ku horumari karaa luqadayda speaking English ku hadalka Ingiriishigu seems to me wixii la muuqdaa very difficult mid aad u adag. So saa daraadeed, how can I improve my speech? Sidaan ku horumari karaa hadalkayga? Wuxuu yidhi waxaad ku horumari kartaa if you want haddii aad doonaysid to improve inaad hormarisid your speaking ability awooddaada hadalka. You must not absent waa inaad ka maqnaan on conversation days maalmaha wada sheekaysiga. Because maxaa yeelay more practice wada sheekaysi furan oo aad samaysid makes you perfect waxay kaa dhigayaa mid diyaarsan. If you want haddii aad doonaysid to improve your speaking ability inaad horumarisid hadalkaaga inaad hormarisid haddaad doonaysid, you must not absent waa inaad ka maqnaan conversation days maalmaha wada sheekaysiga. Because maxaa yeelay more practice badanoo aad samaysid makes you wuxuu kaa dhigayaa perfect mid diyaarsan oo khatara. On the other hand, dhanka kale, I sometimes waqtiyada qaar listen on the radio waxaan dhegeystaa radioha and I don't understand waxna kama fahmo. So how can I catch up with the how can I catch up the radio? Sideen ula qabsan karaa radioga? Wuxuu yidhi qofkii kale try isku day to
to speak more inaad in badan ku hadashid. You will understand more in badan baad fahmi doontaa. Try isku day to speak more inaad in badan ku hadashid. You will understand waxaad fahmi doontaa more in badan. casharkeenii maanta intaasuu ku ekaan doonaa. fadlan haddii aad casharkan ka heshay sii faafi.